waxaa jira nin la oran jiray Camr bin Thaabit bin Waqash islaamka iyo muslimiinta aad buu u necbaa waliba necab aad u daran maalin maalmaha ka mid ah nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u baxay dagaalkii Uhud si uu la soo dagaalamo mushrikiintii reer Quraysh balse hal mar waxaa Camr bin Thaabit uu la soo baxay jaceylka uu u qabo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiinta waxa uu bilaabay inuu dadkii weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam si uu ugu sheego in uu rabo in uu soo islaamo kadibna waxaa lagu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii waxa ay aadeen dhanka iyo buurta Uhud kadibna markii hadalka loo sheegay waxa uu aaday dhanka iyo buurta Uhud ilaa uu ka gaaray halka markiiba waxa uu la kulmay nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo daamankiisii ay ka qubanayaan ilin farxadeed halkaas ayuuna nabiga calayhi salaatu wasalaam hortiisa ugu islaamay dagaalkii ayaa bilowday kadibna nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku amray in uu seefta qaato oo uu dagaalka dhinac ka galo Camr dagaalkii ayuu dhinac ka galay wuxuuna maalintaa u dagaalamay si aan caadi ahayn ilaa ay kaga dhacday seef dhaawac aad u daranna uu soo gaaray inta aysan nafta ka bixin ayaa waxaa arkeen dad ay qaraabo yihiin way u soo dhawaadeen kadibna waxa ay ku yiraahdeen Camrow maxaa ku keenay halkan ma nacayb aad u qabtid baareerka aad ka dhalatay mise jacayl islaamka aad u qabtid waxa uu ugu jawaabay sida tan waxaa halkan i keenay jacayl aan u qabo islaamka waana islaamay rabbi iyo rasuulkiisa ayaana rumeeyey kadibna waxaan dhinacayga ka qaatay seefta dagaalka ayaan sidaas ku soo galay ilaa waxaad arkaysaan iga soo gaaray haddaba in yar kadibna waa ay ka baxday naftii saxaabadii rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayay u yimaadeen waxa ayna weydiiyeen xaaladda Camr bin Thaabit nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yiri waa ahlu janno fadlan haddii uu ku cajab geliyo fiidiyogan sii gaarsii walaalahaaga